baraguud ka sugnee kunidaysu taagnayeen kunayba talabi garanoo kuushii hantiinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada allow ku gargaar kayga nabato dadkana garansiilibiyo gobanimo dadkana garansiilibiyo gobanimo allow ku gargaar kayga nabato dadkana garansiilibiyo gobanimo dadkana garansiilibiyo gobanimo haddaan loogu in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo guntiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaha soo go'ay miyaan guralayn midhaha soo go'ay haddaan loogu in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo guntiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaha soo go'ay bismillaahi raxmaan raxiim madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdigii hogaaminayay ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal qaatay muddo 4 maalmooda oo madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku joogeen caasimadda waddanka imaaraadka carabta ee Abu Dhabi madaxweynuhu markii uu gaaray waxa loogu soo dhaweeyay hab maamuus meeqaamkeedu sareeyo oo ay ka muuqato haykalka haybadda dawladnimo madaxweynaha iyo wafdigiisu muddadii halka ku sugnaayeen waxay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta ugu sareysa waddanka imaaraadka carabta oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddanka imaaraadka ahna wasiirka madaxtooyada isla markaana ahaa kusimaha ra'iisul wasaaraha Sheikh Mansour bin Said Al Nahyan iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda imaaraadku waxay kaga wada hadleen kulamadooda arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin ammaanka guud iyo horumarka mandaqada geeska Afrika xoojinta xiriirka labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka imaaraadka carabta kobaca dhaqaalaha maalgashiga macdanta iyo tamarta iibka xoolaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dalxiiska horumarinta xeebaha iyo kalluumaysiga isu socodka labada shacbi iyo isu furka suuqyada dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka imaaraadka carabta iyo dirdirgelinta heshiisyadii iyo hawlihii horumarineed ee mashaariicdii waaweynaa ee labada dal ay muddooyinkii u dambeeyayba wadaagayeen dawladda imaaraadka carabta iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhaxeeya xiriir adag oo qoto dheer oo ku dhisan diblomaasiyad iyo iskaashi madaxweynaha iyo wafdigiisu muddadii ay ku sugnaayeen imaaraadkana waxay waqtiga 4 maalmooda ay ku qaadanayeen sidii ay ula wadeegi lahaayeen mas'uuliyiinta imaaraadka carabta dhammaanba kaabayaasha dhaqaalaha khayraadka dabiiciga ee dalkani leeyahay in loo bandhigo kaliya dawladaha maahe shirkadaha dawladda ka hawlgala ee maalgashiga sameeya ayna tusaale u noqoto wadamada kale caalamku inay ku soo dhiiradaan oo ay arrimaha iyaguna qayb ka noqdaan mas'uuliyiinta waddanka imaaraadku madaxweynaha waxay uga mahad celiyeen martiqaadka ay u fidiyeen inuu ka soo ajiibay oo dalka imaaraadka soo gaaray madaxweynuhuna wuxuu ku bogaadiyay in muddadii uu talada dalkan hayay muddaba tira 2 jeer ay martiqaad rasmi ah u soo direen taasina ay ka turjumayso xiriirka adag ay labada dawladood wadaagaan guud ahaan waxaanu si aad u meeqaam iyo mug weyn ugu mahadnaqaynaa dawladda imaaraadka carabta shacabka imaaraadka carabta iyo jaaliyadda reer Soomaaliland ee waddanka imaaraadka carabta madaxweynaha xalaytu ku qaabilay munaasabad soo dhaweeyna madaxweynuhuna oo uga warramay xaaladda dalka aad iyo aad ayaad u mahadsantahay